haddii xasan sheekh maxamuud kursiga kusoo laabto ma ahan in soomaaliya god lagu riday. xasan sheekh maxamuud waxaan ku leeyahay hambalyo, waana ku taageerayaa 4 sano ee aad joogto kursiga. dhammaan dadka Soomaaliyeedna waxaa laga rabaa inay taageeraan xasan sheekh maxamuud. Soomaaliya waa ka gudubtay xilligii qofku uu ku taageeri jiray qofka kale qabiil ama siyaasiga lagu taageeri jiray reer hebel buu ka dhashay. hadda waxay maraysaa Soomaalidu inay isku taageerto waxqabad, inay isku taageerto aragti. marka xasan sheekh maxamuudna waxaan leeyahay taageerayaashii nabad iyo nolol ha ka xumaanina calafka inta ku ekaay. ku wada jir waxaan leeyahay ha ka xumaanina calafka inta ku ekaay. dhammaan xasan cali qeyre taageerayaashiisa waxaan leeyahay ha ka xumaanina calafka inta ku ekaay. anigaba kama xumaan, xasan sheekh maxamuud ma taageereen, laakiin maadaama uu madaxweynihii noqday, madaxweynaheena ma caayi karno. waa weynaanay, Soomaali waa ka gudubtay, berigii maaragtay isqabsi jirtay. waa inaan taageernaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud, asagaa dalkan madaxweyne ka ah. marka kamana hor dhici karno xasan sheekh maxamuud. xasan sheekh maxamuud markii hore ee uu madaxweynaha u noqday Soomaaliya wuxuu ahaa nin cusub. 4 sano uu joogay, waxna waa saxay waxna waa qalday. laakiin hadda xasan sheekh maxamuud ka hore miyaa noo soo noqon doona? ma xasan sheekh maxamuud ka duwanaa noo imaan doona? kama hor dhacayno, maxaa yeelay shaqa u taalla xasan sheekh maxamuud. waa inuu xukuumad dhisaa, waa inuu maaragtay kala shaandheeyaa dowladda. marka kama hor dhici karno xasan sheekh maxamuud. xasan sheekh maxamuud hadda ducuu nooga baahan yahay. ilaahay ha la garab galo xilka culus ee Soomaali u igmatay. allah ha la garab galo, allah ha la garab galo. waxaan leenahay ilaahay ha ka dhigo mid Soomaali ay ku degto. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتك وحرم برتيدة فيسبوك يو برتيدة يوتيوب. ولا ليال أما صاحب يال مركا كواد واحد إنكو سلامي سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتاي دلكين الصوماليا شري وحا كدعي دورشو داس وكوغوليستي حسن الشيخ محمود. xasan sheekh maxamuud ayaa shalay loo iclaamiyey ama loo go'aamiyey inuu yahay madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ee 4 sano ee soo socota. waxaan leeyahay hambalyo xasan sheekh maxamuud iyo dhammaan taageerayaashiisa meel walba oo ay dunida ka joogaan. xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay adigana ilaahay ha kula garab galo mas'uuliyadda culus ee aad u qaaday ummadda Soomaaliyeed 4 sano ee soo socota. intaa kadib waxaan rabaa inaan halkan kala hadlo xisbiga aan aniga ka tirsanahay ee Wadajir oo ku haray wareegii koowaad. xisbiga Wadajir shalay waxay soo bandhigeen dadaal iyo ciyaar wanaagsan. hase ahaatee Soomaaliya ma dhammaan, Wadajirna ma dhammaan, Cabdiraxmaan Cabshakuurna ma dhiman. insha Allah 4 sano ee uu xasan sheekh maxamuud talada dalka hayo ayaan haddana dadaali doonaa si doorashada dambe aan xilka u qabanno. hogaamiyaheena ruuxiga ah Cabdiraxmaan Cabdishakuurna waxaan leeyahay waxaad samaysay dadaal dheer, weliba adigoon xil hayn. waxaadna muujisay in Soomaali aysan u baahnayn qoray, ay u baahan tahay wada hadal. Cabdiraxmaan Cabdishakuur guli gobonnimo, adiga naftigaaga waxaan mudan tahay in lagu xushmeeyo 4 sano ee aad ummadda Soomaaliyeed kaga digaysay khataraha imaan kara. waxaa tahay siyaasi codkara, waxaa tahay siyaasi meel dheer wax ka arka. intaa kadib aniga 3 nin ayaan la rabay in kursigan midkood oo ku fadhiisto. number 1 waa Cabdiraxmaan Cabdishakuur sidaad ka warqabtaan. number 2 waa xasan cali qeyre. number 3 wuxuu ahay madaxweynihii shalay laga adkaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. intaasba ma uusan noqon ee waxaan noqday madaxweynihii hore Soomaaliya. xasan sheekh maxamuud ayaa kursiga ku soo laabtay. haddii xasan sheekh maxamuud kursiga ku soo laabto ma ahan in Soomaaliya god lagu riday. xasan sheekh maxamuud waxaan ku leeyahay hambalyo, waana ku taageerayaa 4 sano ee aad joogto kursiga.
dhammaan dadka Soomaaliyeedna waxaa laga rabaa inay taageeraan Xasan Sheekh Maxamuud. Soomaaliya waa ka gudubtay xilligii qofku uu ku taageeri jiray qofka kale qabiil ama siyaasiga lagu taageeri jiray reer hebel buu ka dhashay. hadda waxay maraysaa Soomaalidu inay isku taageerto waxqabad, inay isku taageerto aragti. marka Xasan Sheekh Maxamuudna waxaan leeyahay taageerayaashii nabad iyo nolol ha ka xumaanina calafka inta ku ekaay. ku wada jir waxaan leeyahay ha ka xumaanina calafka inta ku ekaay. dhammaan Xasan Cali Kheyre taageerayaashiisa waxaan leeyahay ha ka xumaanina calafka inta ku ekaay. anigaba kama xumaan Xasan Sheekh Maxamuud ma taageereen, laakiin maadaama uu madaxweynihii noqday, madaxweynaheena ma caayi karno. waa weynaanay, Soomaali waa ka gudubtay, berigii maaragtay isqabsi jirtay. waa inaan taageernaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, asagaa dalkan madaxweyne ka ah. marka kamana hor dhici karno Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan Sheekh Maxamuud markii hore ee uu madaxweynaha u noqday Soomaaliya wuxuu ahaa nin cusub. 4 sano uu joogay, waxna waa saxay waxna waa qalday. laakiin hadda Xasan Sheekh Maxamuud ka hore miyaa noo soo noqon doona? ma Xasan Sheekh Maxamuud ka duwanaa noo imaan doona? kama hor dhacayno. maxaa yeelay shaqa u taalla Xasan Sheekh Maxamuud. waa inuu xukuumad dhisaa, waa inuu maaragtay kala shaandheeyaa dowladda. marka kama hor dhici karno Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan Sheekh Maxamuud hadda duco nooga baahan yahay. ilaahay ha la garab galo xilka culus ee Soomaali u igmatay. allah ha la garab galo, allah ha la garab galo. waxaan leenahay ilaahay ha ka dhigo mid Soomaali ay ku degto, ku nasato, ku qabowdo inta uu kursiga joogo. waa tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay laabta la isku furo oo aan maaragtay dalkan annaga iska leh, dalkan annaga iska leh. si doorasho cod iyo qof loo gaaro, amniga aan ka shaqeyno, oo aan ka shaqeyno walaalnimada, aan ka shaqeyno oo ilaahay aan u laabano. hadda Xasan Sheekh Maxamuud waxaa doortay shacab maaha, waa siyaasiyiin. farmaajane waxaa doortay shacab maaha, waa siyaasiyiin. markuu farmaajo imaanaya shacab ma dooran, markuu Xasan Sheekh Maxamuud shalay yimidna shacab ma dooran. aan ka shaqeyno si annaga aan codka u baxsanno. maalintii Soomaaliya ay gaarto cod iyo qof, maalintaas Soomaaliya waa hagaagay. maxaa yeelay qof walba wuxuu codkiisa siinayaa qofka daacadda ah ee dadka iyo dalkaba isku wadi kara. intii ka horeyso waxa waaye madaxweynayaasha noo imaado aan la shaqeyno. Soomaaliya markay gaarto cod iyo qof, markaas waxaa imaanaya rag dhalinyaro ah oo wax bartay oo dadka iyo dalkana wax u qabanaya imaanaya. waa imaanayaan la shaki. anyway, guuleysta meel walba dunida aad ka joogtaan. haddaad igala socoto barteeda YouTube-kana subscribe saara channelka, muuqaalkana like saar. haddaad Facebook igala socotana share garay muuqaalka. bye.